السلام عليكم أصحابتا. Okay, so storygan horta dhageysta. Okay, aniga gadaal ayaan idinka sheegayaa ra'yigayga. Okay, yeah. My Somali wife that actually gave her the Shahada. And my Somali wife didn't speak English that much. It was her treatment of my mother. My mother told me that one day she wanted to go to church. So Amina told her, "Mother, I'll take you to church." So mother said, "You're going to take me to church?" Amina drove her to church. When they got there, my mother said to Amina, "Amina, are you going to wait in the car for me?" Amina said, "No, mother. I'm coming in the church with you." Amina has full hijab. Amina sat in the church with her until she left and then drove her home. And my mother told me that was the most profound experience for her, that this Somali girl, she's wearing full hijab. My mother said, "Are you allowed to do that?" And Amina just said to her, "Mother, this is a church and I'm sitting with you. If they say something wrong, I'll say astaghfirullah. If they say something good, I'll say alhamdulillah." It was that cumulative experience that made my mother comfortable to take Shahada. Alright, so ra'yigayga aniga wuxuu yahay muslimnimadaada wax kaa qaadi karo horta male. Let's say waxaad haysataa asxaab oo maxay tahay gaalo ah, sax? Inaad tustid waayo wanaag iyo fiicnaan iyo waxaas. In the end of the day, Christianka waxa weeyaan also they believe God, okay? So you could go to church, but you don't have to believe what they believe, okay? Haddii aad saaxiibo haysatid ama dad oo maxay tahay Christian oo kale ah haysatid, waad raaci kartaa, waa aadi kartaa. That don't make you maxay tahay not Muslim. Full xijaabkaaga wadan kartaa, religionkaaga wadan kartaa, cid kugu celin kartaa, cid kugu la dagaalamayso taas ma jirto, ma ogtahay? Laakiin waxay tahay dadka oo gaalada masjidkeena way imaan karaan, they welcome. markasta masjidkeena way imaan karaan, cid ka celin kartana male. adoo muslima aan ka celin karin, ma ogtahay? Because baytul Allah weeyaan, okay? So baytul Allah waa aadi kartaa, cid kugu haysta male. maxay tahay sida dadka lagu soo xero gelin karna weeyaan, runta marka la sheego. Soomaalideena I know inaad baydadka qabtiin ama waxaas. Imagine markaan rabno masjid cusub inaan samaysano, meelaha la iibsado Kristiyaanka churchyadooda ayaa la iibsadaa oo masjid laga dhigaa, so Kristiyaan ahaan jiray meeshan, hadda Muslim masjid ay tahay. kuwa oo Muslimka masjidka meel ah, Kristiyaanka ay iibsado church ay ka dhigaan. It's like that. It's not that deep, okay? Religionkaaga, it's in you, it's in here, it's in here. Nobody can change, okay? waxaa belief galaysan tahay qofkaa bedeli kara male. haddii ilaahay run marka la sheego, haddaad moor aad maaragtay kala samaysid oo aad ula hadashid oo aad really sii raacdid maaragtay logica oo ka dambeeyo, dad badan ayaa muslimka soo dhigi karnaa haddii la eego waayo, runta haddii laga hadlo waayo. Because haddaad naxariis tustid, wanaag tustid, aad tustid inaad ka qabweyneyn oo aad maaragtay isku dad tihiin, isku cud tihiin, isku wax tihiin, maaragtay waxaan ugu kala duwan u yahay waxyaalo yaryar, ma ogtahay? dad badan aad soo gelin kartaan diinta, but diintii qalad ayaa loo fahansiiyey dadkii. hadda qof muslima churchiga ma geli karo, ma aadi karo. No, churchiga waa aadi kartaa, laakiin of course ma aadi kartid just to go there and pray and do that there. No, but like for example, qof hadduu aroos ku haysto ama qof hadduu meel ku haysto, waa aadi kartaa, caadi waayo. laakiin adiga diintaada haysataa, xijaabkaaga wadataa, whatever. dadka inta badan gaaladana ah masjidkeena way imaan karaan, because magxigni run marka la sheego waxa weeyaan bayt oo ilaahay iska leeyahay, way imaan karaan. hadda arag storygan aad aragteen meeshaan idin soo dhigay, uu ku muslimay ninka. of course ninka muslim u ahaa, naagta wuu qabay, laakiin hooyada ninka dhashay muslim may ahayn. muslim waxay kusoo noqotay gabadha say ula isticmaashay, because gabadha diinteeda ma ka qaadi karto. sax or been? Yeah, love you guys, bye.